Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkani waa Wadani Podcast. Waxaana idin furi doonaa anigoo ah Abwaan Zaki. Kusoo dhawaada mudanayaal iyo marweyn dhammaan dadweynaha ku dhaqan daafaha adduunka. Waxaana leenahay soo dhawaada mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad. Maanta waxaan ka hadlaynaa shaqooyinka la jecel yahay. Kuwaasoo ah shaqooyin ay dadku aad iyo aad looga jecel yahay. Marka waxaan rabnaa qofkii raba inuu ka qayb qaato barnaamijkan wuu soo geli karaa live-ka isagoo nala share garaynaya wuxuu experience u leeyahay. Dadka inta badan shaqooyin fara badan bay dadku jecel yihiin. Marka u kaadiya qof baan soo qabanaynaa. in ilmaha aan pressure badan la saarin si uu cunugii wax uu jecel yahay u qabsado kuna shaqaysan karo. waxaan iga raali ahow waxaan u malaynayaa qaybtii horeba inaanan ma noogu soo celin kartaa hal mar. Waxaan u malaynayaa inaanan kusoo qaban markii hore. Raali ahow. hadda si fiican may maqashaa. haddaan si fiican ku maqlaa. Raali ahow. Anaa ku maqlaya dadka inaynan ku maqlin baa laga yaabaa. waxaan iri yacni waalidka Soomaalida annaga waxaan jecel lahay oo maaragtay cunuga inaan maaragtay aan wixii uu shaqadiisa noqon lahayd mustaqbalka ama uu baran lahaa ama ku shaqo tegi lahaa inaan annaga u doorno oo nidhaahno waa inaa ama dhakhtar noqotaa ama injineer noqotaa ama noqotaa maxay ahayto lawyer. saddexdaa wixii ka baxsanna waa wixii ka baxsan saddexdaa wixii ka baxsan waxa waaye sharcigii waxaa jebisay guriga waa halis weeye. in lagu tuuraa halis bataa. marka dhalinyarteena waxay shaqo la'aanta la tahay oo ay la wareersan tahay waxa weeye wax aanay kari karin baa maskaxda loogu shubay. hadda adigoo waxaa laga yaabaa dadku isku waxbarasho ma aha. waxaa laga yaabaa ilmaba wax inuu ku fiican yahay, ilmo akhriska inuu ku fiican yahay, ilmo inuu farsamada gacanta ku fiican yahay, ilmo inuu ciyaarta ku fiican yahay. ilmuhu wuxuu leeyahay talent. annaga ma u fiirino talentiga. waxa weeye waa inuu dhakhtar noqdaa. dhakhtarkiina dadkii hadday wada dhakhtar hadday noqdaan dee shaqooyinkii kalaa dayacmayo waxa la qabtoo la weynaya. waa run. way adag tahay wallahi taas. marka waalidka Soomaalida aniga waxaan kula talin lahaa in ilmaha maaragtay wuxuu jecel yahay loo qabto. wadamadan hadda aan nimid oo kale qurbaha waxaad ka faa'iideysaa oo kale wax alaala waxaad taqaanaad ku shaqo tegi kartaa. haddaad dabaasha taqaan dabaasha dadka baraysaa. haddaad farsamada gacanta taqaan, haddaad mechanic tahay, haddaad fitnesska taqaan, adigu wax leeyahay ma taqaanaa wey wadanka aa ku shaqo tagtid. dadku uu kala shaqo tegay. Soomaalida ha iska dayso lawyerkan iyo injineerkan aan la gaaraynin oo caruurtiina lagu lugooyo. tixgelida caruurta rabitaankooda. mayo taas waa qasab. because qofkii isagaa og moogta wixii isaga niyadiisa farxad gelinaya. sax. marka waxaa loo baahan yahay in la dhegeysto caruurta. waxaabad u malaysaa in badan oo naga mid ah diinta si khalada inay dadka waalidiinta qaar u fahmeen oo ayna xitaa caruurtooda la sheekaysan ay ka gaabiyaan. laakiin waxaa fiican inaad fahanto caruurtaada aad la sheekaysan karto aadna u tixgelin karto de wuxuu ku fiican yahay markaa. sax. maya horta waxaan badan baan badbaadnay hadda. Soomaalidii dagaalkii aad baan ugu badbaadnay. waxaa ka badbaadnay young generationka. annaga waxa waaye waalidka haddii wuxuu kusoo koran buu horta cunuga u qabtaa. annaga waxaan kusoo kornay iyadoo ul la isku seexiyo haye xuuxayo ku cunin la dhaho. baalkii afar qooblii baa soo socda uu ku cunaa haye caawa lagu cunaa cunuga sariirta ku dhigan inuu seexda ana lagu soo koriyo.
iyo dhegdheer iyo baa imaanaysaa caawa waxaa imaanaya madax ku tidiya imaanaysa caawa derbiga isku soo nabaysaa haye iyo ilmo buug lagu seexiyo oo marka caawa anjel baa ku imaanaysa malaa'ig baa kula hadli doonta laleey ha marka anaga waa kusoo kornay waxa weeye laakiin waxaan ka badbaadaya I believe younger generationka hadda soo koraya aad bay uga badbaadayaan waxyaabo badan waxay baranayaan sida adduunka kale u nool yahay may waa run bal inaguna waxaan rabnaa inaan dee qof walba oo naga mida inuuna isdhiganoo wuxuu ku faa'iideyn karo dadkiisa ma garanaysaa inuu uga faa'iideeyo dad fara badan baana ogeyn lakin societygu waxa weye waa circle haddii aad badbaadiso ilmaha deriskaaga ah ama aad ka qabato wax xun oo aana dee u eegin muxuu ahaa aniga maxaa iga galay ma garanaysaa ya waxay keenaysaa hadduu ilmahaas deriskaaga ama dee wax un ku dhaco ma garanaysaa ama dhibaatooyin ama dee waxaad imanaysa ma garanaysaa inay effective ku noqoto ama caruurtaada ay wax ka soo gaadhaan marka society waa circle marka waa loo baahan yahay taas in la hagaajiyo aad iyo aad hadda anigu waxaan qabaaba waxyaabo badan hadda geedka findhicilka la dhaho findhicilka Chinaan kasoo gadanaa annaga haye geedo waaweyn oo quracyo ah baa noo yaala quracaas intaa dhalinyar u dirno oo gloves loo xiro warjajabiyo caagadahana ku gura lama laha haye marka waxyaabo badan oo aan qabsan karnaa jira waddanka allaha nabad nooga dhigo yaanki jiran dhalinyartan badan oo qurbaha ku kortay oo maaragtay waddankii xitaa wax ku baratay yarna waayaheeda maaragtay cusub bay la soo koraysaa alxamdulilah waa run waxbarashadii baa hadda la fahmay dadkii waxbay barteen adduunkii baa lala macaamilay qolaba meel bay kusoo kortay dabeecadihii dadkaa lasoo kala bartay mid indhayar kusoo kora mid maraykan kusoo kora mid yurubtaan kala jooga waa marka laisku imaado waxaan u malaynaa inay maaragtay wax badan isbedeli doonaan nimca tafashuuq baa la gelayaa de nimca talafashuuq qabyaaladii oo kale for example qabyaaladoo kale ilmaha yara waddamadan ku koray ama kuwa afrikadaas ku koray oo kale qabyaaladii sidii hore kuma aha waa laga daalay baash waxay arkeen waalidkii oo maaragtay qabyaaladii wax ku waayo ilaa hadda qaxoonti ah marka iyaga laftigooda uma baahna waxay dhahaan annaga qabyaalad ma rabno may waa run aad baa ula dhacsanaa dhalinyarta jiinka noo soo socda ilaahay ha barakeeyo may wallahi dhalinyartu way u baahan tahay maye taas adigu mar kalaan ka wada hadli doonaa hadda waxaan shaqooyinkan ka hadalno I think dhalinyartu wax fara badan baa u qabsamay lakin also identity crisisna uu ku dhacay haddii taas laga eego waxaa mar kalaan usoo laabanayna topicaas lakin shaqooyinkan ka hadlaynaa shaqooyinka waxaa aniga aan iri maaragtay shaqooyinka in qof walba wuxuu jecel yahay uu sameeyo oo si dadku shaqo u wada helo ila shaqadu engineer iyo dhakhtar un ma ahe hadda Soomaaliya badaheeda kalluun baa buuxiyey soo baad garan waxaan u malaysaa muxuu ahaa in xitaa waddanka wuxuu u baahan yahay structure of government u baahan yahay iyo muxuu ahaa in uu dee heli karaan ma garanaysaa hay'adooyin u shaqeeyo dee dadka tababaro shaqa abuur bilaaba Soomaaliya keliya hadday badeeda maanta lasoo bixi lahayd oo ay dadku ay baran lahaayeen sida loo kalluumaysto kalluunka loo jarjaro wax fara badan baa uga hagaagi lahaa Soomaaliya keliyana ma ahe waxa weeye dadkeeduna ma rabaan inay shaqaystaan qof walba wuxuu rabaa and I believe dadka inay u badan yihiin dhibaatooyinka go ahead Soomaaliya aniga badaheeda hadda adiga kusoo sheegay Soomaaliya horta badaheeda halis bay ku jiraan
waayo hay Soomaaliya badaheeda waxa weeye last 30 sano control badan may lahayn. mhm, Haddana dowladda China ba loo saxeexa. haye China quraanjada cuna aan waxba ka tegin. haye Marka wallaahi badii waxa weeye dee hadda waddankan aan maxaa joogo haddoo kale yacni mhm, control badan buu leeyahay oo mhm, badaha wixii kalluun la kalluumaysanayo kalluunka lab iyo dhadiga ah wixii yaraanaya wixii loo baahan yahay cadad bay leedahay ay kalluumaysiga qaadan karaan laakiin badaheena annaga dee waxa weeye een, waa iska daldalo qof walbaa loo fasaxay haye dee kalluunba inuu ku jiro allah u aclam haddeerto wallaahi kolay waddanka dee kalluun bal kalama baxay 30 sane hadda lasoo dhaafay laakiin shaqa abuurinta oo kale aan sheegayaa waxay u baahan yihiin inay like in de loo tababaro qalabyadii loo soo iibiyo dadkuna laakiin maba rabaan shaqooyinka qaar bay yaraysanayaan ma fahante honte qof walba wuxuu rabaa ama dee wasiir inuu noqdo dadkii dee wasiiraha ka orday ma ogti ama caaqil ama muxuu ahaa inuu xafiis fadhiyo iyo inuu shaqo la-aan noqdo waxba kama dhexeeyaan waa saas taasoo markaa dhibaatooyin fara badan waddanka u keentay dadku inta badan governmentiga ayay eedda saaraan laakiin dadkuna eedda waxbay ka qaadan karaan shacabka ayaa mas-uulka ah governmentiga waxa weeye waxay caawin kartaa shacab u hoggaansan shacabka ayaa mas-uulka ah anigu waxaan aaminsanahay shacabka maaragtay dhalinyartu inay shaqaystaan in ay maaragtay shaqo walba ay bartaan shaqadu ceeb ma aha shaqadu qofku wuxuu ka shaqeeya ceeb ma aha waddankooda inay wadannimo ay haystaan oo waddani ay noqdaan oo ay maaragtay waddankooda aaminaan shaqooyin dadkan qurbaha ku maqan ama maaragtay dowladdana ay shaqooyin badan hal abuur badan dhalinyarta loo sameeyo waayo waa waxa keliya waddanka hadda ku badbaadi karo in dhalinyarta laga dhaadhiciyo maaragtay in balwadaha oo kale laga wacyigeliyo wallahi caawimo badan bay u baahan yihiin caawimo badan bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin xagga waalidka laga caawiyo xagga dowladda xagga maaragtay communityga in laga caawiyo dhalinyarta shaqo abuur badan loo sameeyo shaqo abuur badan loo sameeyo meelo badan lagu furo ay shaqada ku bartaan marka hore dadku shaqada waxay u maleeyaan wax fara badan bay dadka ka ilaalisaa marka hore qofku waxay u bilaabaysaa inuu wax soo saar uu ka heli karo bulshada inuu wax u gudbinayo oo bulshadii hadduu beer wax ka soo saaro dadkii inuu dee isagana quudinayo ninka xitaa beerta falaya waxa weeye waxbuu abuurayaa wuu la soo baxayaa dadku u gudbinayaa isagana munaafac buu ka helayaa iyagana munaafac bay ka helayaan oo dee waddankooda wax uga soo go-ay bay qaadanayaan waa organic isaguna de waxbuu ka helayaayo dee lacagtaas kasoo gashay buu isaguna isticmaalaya economigana kor buu u yara kacayaa laakiin waxaad u malaysaa hadda shaqo walbo hadda la abuurayo marka hore waxaa loo baahan yahay structure soomaaliya waxay ku baaba'day ama aanay waxyaalo fara badan aanay ugu hirgelin waxa weeye qof walba wuxuu rabaa soomaaliya inuu wax ka soo helo shacbiyan haddii la yidhaahdo wadanimadii baan jirin waxa weeye meesha dhiil unbaa jira wadanimadii ma jirto waxa weeye qofka haddaanu waddani ahayn oo waddankiisa aaminsanayn ama maaragtay hadda inta badan markay maaragtay dadku ay wax qabanayaan soomaaliya hadda nabadii oo kale iskaa wax u qabsaa jirtay waxaa jirtay dadka inay waddooyinka xaaqaan in la caawiyo waxaa naga dhumay
waxaa naga dhumay waddaninimadii in waddankaaga aad wax u qaban karto dailyga inaad u qaban karto wax yar oo hadday quraanjo ururto mulca waa jidaale hadday wax yar aan qof walba hadduu qof qashinkaas meel ka ururiyo haddii qof dhalinyarta balwadaha leh qof uu isku xilqaamo hadda maraykanka oo kale waad aragtay dad communityga wax badan isa saara wax walba dawladda kuma sii dayn kartid dee dawladna ma jirto hadda culays badan oo dawladihii quwadda waaweynaabaa dadkooda dhibaataysan yahay oo maaragtay kala daadsan yahay oo afrikadaasa ama yurubtaana dawladda soomaaliya oo laastii 30 sano dagaal ku jirtay oo khalkhal ah oo jilciday oo kala dambeyn jirin oo nidaam jirin oo 30 sano dadka ku koray waddankii aanay aragba dawlad la xushmeeyo ama nidaam marka aniga waxaan aaminsanahay society ahaan ayaanu u weynay inaanu wax qabsano waayo dawlad keliya wax ma qaban karto hadda daabraha waxaa arkaysaa qof deriskaaga ah oo adiga 4 qof 5 qof 6 qof maalintii wax siinaya la training gareynaya soo iskuulo u geynaya yacni intaas haddii laga helo inay dad badan baa nahay intaas hadduu qof walba sameeyo oo iskaa wax u qabsa ah oo wadannimo ah oo aadad ka fakerayn mushahar baad ku helaysaa oo aadad ka fakerayn aad madaxweyne ku noqotid ama wasiir ku noqotid ama ra'iisul wasaare ku noqotid wax badan baa waddanka iska bedeli lahaa dhalinyarta waxay waayeen annaga ayaa maaragtay garabkoodii ka baxnay dadkii waaweynaa ayaa wuxuu ku mashquulsan yahay anigoo reer hebela aniga kursigaasaan u baahanahay haddeen reer hebel lahay waa la isku awrkacsanaa adiga ma fahanti marka wax qabadka iyo shaqada waxyaabo badan baa annaga u furfuri karnaa dhalinyarta marka ma laga yaabaa dhalinyartu hadday is yidhaahdeen dhalinyarta inta badan qaar fara badan baa ka seexday oo is yiri dadkii iga waaweynaa hadday waxba qaban waayeen aniguna waxba kama qaban karo ma laga yaabaa dhalinyartu inay aqliyan taas inay rabaan inay iska bedelaan waa iska bedelayaan waxay u baahan yihiin qof u bilaaba oo dadku way isku daydaan adduunka waa la isku dadaa bini'aadanku way isku daydaan wax walba isku dayashii ku dhacaan adduunka marka ugu horeysa waddankaana waxaan sameynaya waddanka ku xigaa sameynaya oo waa wax natural oo bini'aadanka jirkiisa ku jirta in la isku daydo waxaan aaminsanahay haddii dad badan oo inaga mid ah nolosha lagama quusto wax walbana way dhici karaan waxaan aaminsanahay haddii loo bilaabo oo in walba qof walba intuu caawin kara caawiyo ma aha inaad hal qof haddaad maanta noloshiisa bedesho waxay ka mid tahay adigoo dad badan noloshooda bedela maasha allah waxay ka liidataa adigoo yidhaahda waxba ma qabanayo anigu dadka wax uma qaban karo hal qof haddaa bedesho noloshiisa taasaa adiga kaa badan si kastaad ugu bedeli kartaa ma aha inaad lacag siiso waxaad u bedeli kartaa inaad xirfad u abuurto waxaad u bedeli kartaa inaad niyadda u dhisto waxaad u bedeli kartaa inaad balwadda uu ku jira ka saarto waxaad u bedeli kartaa inaad waxbarasho siiso wax badan baad u bedeli karnaa marka yaan la quusan baa la leeyahay yaan la quusan inta la nool yahay waana la isku dayanayaa haddii annaga aan u bilowno ama dadka kale eena dhegaysanayaan ay u bilaabaan oo maalin walba maaragtay la arko dad wax qabanaya waxbaa dhismaya hadda Facebook oo kale waad aragtay qofka dhibaataysan oo kale ama qofkii xanuunsan dad baa lacag u ururiya anyway adigu intii doontaba ha gaartee waa la isku dayday qof walbana waa loo ururiyaa waxbaa loo qabtaa maanaan lahaan jirin waagii hore marka haddii la keeno wacyigelin dhalinyarta lagu wacyigelinayo oo annagu aan iska xil saarno oo ama wax loo qabanayo ama wax loo samaynayo I believe inaan isku dayan doono aanu ka bixi doonana ciilka iyo rafaadka insha allah si fiican baad uga hadashay taasna loo daba raaci maayo waa mahadsan tahay awoy waa mahadsan tahay maasha allah adaan mudan abwaansaki aad ayaad u mudan tahay halkaas ka wad dhalinyarta maaragtay aanu ku faani doono oo soo bixi doonto oo maxay ahayto waddanka wax ka bedeli doonto ayaa tahay halkaas ka wad wacyigelintaada iyo insha allah marka hore programkan waxaan u furnay dadkoo dhan dadka Soomaaliyeed qof
qaasatan u lehna ma jiro waxaan rabnaa inay markaa dadku inay noqoto platform ee dadka dhan intay isugu yimaadaan conversationkooda ku wada qaataan wax lagu kala faa'iido dadka inta badan marka hore aynu wareysan jirnay wasiir ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne waxaanu rabnaa inaan dadka caadiga ah ee caadiga ah inaanu wareysano si aan u ogaano xaqiiqada iyo maxaa laga bedeli karaa waddanka waxaa laga yaabaa wasiirku dee gaari cadna inuu wato guri fiicanna uu degan yahay ya uu waxbana ka kala ogeynba adduunka wax ka socda wasiirkan wuxuu u yimi waddanka inuu horta usoo shaqo tago weeye teeda kale dadkan waaweyn maskaxdooda ma bedeli kartid iyo generationkan soo socda unba anigu ayaan aaminsanahay in mustaqbalkeena ku xiran yahay dadkan waa dad qabyaalad dishay waa dad aan kala aqoon xaaraanta iyo xalaasha waa shaqo tag weeye meesha shaqaa loo yimid ma fahanti insha allah marka waxaan aaminsanahay dhalinyarta ha la wacyigeliyo dhalinyarta maskaxdooda ha laga saaro dhalinyarta waxa loo qabto dhalinyarta ha la shaqo geliyo ha la maalgeliyo communityka waxa u qabtaan shaqsiga waxa u qabto waalidku waxa u qabto dawladda waxa u qabato may wasaas insha allah may dhalinyarta insha allah wax fara badan bay u hagaagi doona iyaguna qalbiyadooda way furan yihiin waxaana leenahay yana cabsan shaqada ha la shaqo tago mid rinjiga mariya mid kabaha tola mid jidadka sameeya jidadka waa hagaajiya mid maaragtay miisaska sameeya mid nalalka sameeya mid qodaxda istakiinka soo gura mid beeraha fala shaqo waa shaqo hala xoog qodaxdaasaaba ugu fudud baa u malaynayaa dadka haddana maqlaya Soomaaliya geed qurac la yiraahdo baa ku soo haray bas marka xitaa uma baahna in la qoro waa la qabanayaa uma baahna waa diyaar waa made in Soomaaliya waliba ha lagu qoro China halkaas oo istakiinkiisa ku baaba'aya in laga gato hay wadamo badan baa la dhici doona xitaa haddaan dhoofino I believe hay waa mid natural labade waa natural waa la yaabaa dadka xagee ka keenayaan leeyahay bahalkan oo shaabka oo basaan u sameysano khatarta hay ilaahay baa sameyn kara wax kale qof walba sameyn kara waa natural ma fahanti marka waxa weeye shaqada hal ogaado dhalinyartana waxa loo qabtaa la wacyi geliyo adigana halkaas ayaan kaaga hambaleynayaa maaragtay gubaadintaada iyo barnaamijyadaada waan kala socdaa Facebooka insha Allah waa mahadsan tahay adaa mudan hey waa mahadsan tahay thanks waxaan rabnaa qofkii halkan ku jira inuu subscribe taabto gambaleelkana ku dhufo si aad halkaas nogala socoto waxaan rabnaa inaan dadka wareysano hadda iyo mustaqbalkaba waxaan wadani u sameynay ma wadani waxa weeye meel ay dadku ku wada sheekaystaan dadkoo dhanna ka wada dhexeeya maanta waxaan ka hadlaynay shaqooyinka la jecel yahay halkaasna waxaan kula hadlaynay cawo oo aad iyo aad u qiimo badan ka hadashay waxyaalo fara badan oo ay dadkeenu danaynayaan waxaan leenahay intii messagekan ka faa'iidaysatay waa ku mahadsantihiin intii kale ee garanaysa qof kaga faa'iidaysan kara messagekan aan halkan ku gudbinay share garay please waa mahadsantihiin dhammaan intaan wada kulmi doono waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo